بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبة كحيرة ديمشو بيتكا يوتيوب كبا كسودو هذا قحم فرن قلب فرن أيان إن كسودو ويننا مقاعيبو وادوح على حاشي إن سيدات عوانك كسو أركتبا وحان كهالي دونا كبدا حراتي تاجك قروحدا قبلها جامعة هاي أفريكا waxaa lagu magacaabaa cadar yuusuf waxa ay tartanka la geleysay gabdho ka kala yimid 54 wadan ee Afrika ay ka kooban tahay bisha December horaanteedii ayaa markaasi tartankani qabanqaabadiisa iyo abaabulkiisa u socday iyadoo tartamayaashu ay kusii qulqulayeen wadanka Nigeria magaalada la yiraahdo Abuja oo tartanku uu ka dhacay tartanka waxaa markaasi ka qayb galayay 61 gabdhood oo wadamada Afrika ka kala yimid taasi oo u tartamayay mid walba ay doonaysay inay hanato taajka quruxda gabdhaha jaamacadaha Afrika Mrs University Africa cadar maysan ahayn markii koowaad ee tartankan ay ka qayb qaadato wuxuu ahaa markii labaad oo tartankan ay galeysay sanadkii 2019 ayay markaasi laga guuleystay balse mar labaad ayay isku dayday waxa ay noqotay Mrs University Africa iyadoo loo xiray taajka quruxda gabdhaha Mrs Africa waxa ay ku tartamaysay xijaabka iyadoo xijaaban ay markaasi tartamaysay waxayna ahayd markii ugu horeysay ee gabar Soomaaliyeed ee xijaaban ay markaasi ka soo muuqato Mrs Africa University ayadoo ku guuleysanaysa kaalinta koowaad taajka quruxdana loo aqoonsaday baraha bulshada ayaa markaasi la isla dhex marayaa muuqaaladeeda mar la wareysanayo waxaa lagu yiri maxaad u sidataa xijaabka waxay tiri dhaqankeena iyo diinteena ayaa ah in markaasi ana xijaabka aan qaato mana ka tagi doono saas ay tahay way ku guuleysatay waxay ahayd qof u dhiiran in markaasi ay ku guuleysatay waa ay ku guuleysatay ololaheeda tartanka quruxda ay ka soo bilowday Instagram-ka oo ay sawiradeeda soo dhigi jirtay iyadoo xayeysiinaysa dharka moodalka ah iyadoo xijaaban taas ayaa sababtay ay tiri in markaasi dad badan ay ku dhiirigeliyaan inaan u tartamo gabadha quruxda jaamacadaha Afrika ee Mrs University Africa waa ay ku guuleysatay cadar sida ay sheegeen hay'adda tartanka qabanaysay bugaheeda internetka ay markaas ku faafiyeen waxay sheegeen inay ku guuleysatay $50,000 ee ku xiratay taajka quruxda gabdhaha Afrika ina iska xirtay dheer maan ogaaway ololo qurux badan iyo tartan adag intaas oo gabdhood mid walba ay doonaysay inay hanato kaalinta koowaad ay rabtay inay noqoto iyadoo Mrs World taasoo kala magacaas lagu hanan karaa inay inta meel soo istaagtay aniga waxaan quruxda Afrika ma ku suurtagelayso weligaa qurux badnaa adeeg ku taala tartan ma galaysaa marka tartanka gasho ayaad noqon kartaa gabadha markaasi hanatay quruxda Afrika hay'adda tartanka qabanaysay ayaa sheegtay in tartankan ujeedkiisu uu yahay isdhexgalka bulshada Afrika ee ka kooban 54 wadan hambalyo ayaan leeyahay Mrs cadar yuusuf oo ku mahadsantihiin daawashadeena iyo la socodkeena fadlan muuqaalka sii share garay commentigana adiga iskala waxaad doonto ku soo qori kartaa leegtana hanaga iloobin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh